ان waxaa la yiraahaa marin mursal waxaanan ahaan jiray fanaanad Soomaaliyeed oo qaaliya maantaytana waxa ay noloshayda ku dambeysay inaan ahay qof Soomaaliya oo qaxootiya oo ku nool dalka Denmark waxaan jeclahay inaan ummadda Soomaaliyeed iyo wixii daawanayo dhanba aan halkaan uga jeediyo wadanka aan ka imid oo la yiraahdo Soomaaliya wuxuu ahaa wadan weyn oo qaaliya oo qani ah buu ahaa oo wax soo saarkiisa iyo dhinac walba quruxdiisu ay aad isku gudbridan tahay waxa dhacday marka wadankayaga horta waxaan rabaa halkaan inaan horta horeeyada kaga muujiyo markii uu quruxda badnaan jiray sidoo ahaa waxaan kaloo jeclahay inaan idin muujiyo waxa jirta dadkii aniga aan la noolaa oo fanaaniinta oo saaxiibaday ahaa waxay ahaayeen dadkaas fanaaniinta ah ugu yaraan 400 oo qof oo ka shaqeysa teatrka nationale kulaha murtida madaalada dadkaas oo maantayta aan qaarkood lahaynin meel ay jiraan dhinteenan qaarna meel ay ku nool yihiin aan caawito la ogeyn anigu laakiin aan halkaan kaliya haatan soo galay horta iyakan ilaahay waxaan uga bariyaa maartay nolol fiican baan uga bariyaa iyo nabad qab ilaahay inuu siiyo ayaan u bariyaa maxaa la yiraahaa waxaan jecelahay halkaan inaan iyagana qarannimadoodii iyo quruxdoodii iyo siday ahaan jireen siday u noolaan jireen in halkaan iyagana masawirkoodii aan ka muujiyo ayaan jecelahay waxa jirto kale hees kale oo anigu maxaa la yiraahaa aan jecelahay maanta inaan halkaan ka qaado oo la yiraahaa magaceeda Soomaali ceeb diida heestaas waxa soo curiyay miraheeda waxa soo curiyay Yuusuf Aadan baa soo curiyay muusikada sida iskugu dhacaysay codkeeduna waxa soo curiyay ninka la yiraahdo Cabdi Khadar Xasan Laari habka hadda la iskugu dubariday waxa sameeyay nin Danish ah oo la yiraahdo magaciisa Son la yiraahdo ayaa isku dubariday heestaas waxa weeye heestaas wax walba iyada taabanaysa wadankayaga ayayna ka sheekeynaysaa heestaas waxaan jeclahay inaad si fiican u daawataan haatanna inaan rabo heestaas inaan idin saaro ku soo dhawaada heestaas
waxa dhacday markii wadankayaga ay dhibaatada weyn gaadhay wax alla wixii ku noolaa wadanka muqdisho magaalada muqdisho in la soo wada cararay oo la soo wada qaxay qof walbana dhibaato ay soo gaadhay aan laga sheekeyn karin laakiin maadaama anigu aan fanaanad ahaa ayaa waxa dhacday wixii dhibaato i soo gaadhay oo dhan inaan hees ka sameeyay markaas heestii ayaan waxaan jecelahay halkan inaad ka daawataan qof walba oo dhibaatada soo arkay oo soo qaxay isagu ay aad u taabanayso inaad ila daawataan inta aniga horta bar aniga keligii i soo gaadhay qof kasta isagoo intaas iyo in ka sii daran ay soo gaadhay haddana maantayto aniga tii i soo gaadhay baan halkan rabaa inaan idinka tuso ku soo dhawaada heestaas oo la yiraaho waxaan dhaco on kufaba heestii iyada ahayd waa tan ku soo dhawaada sida aniga hal iga soo daba dhahaya دراتن حمرك بحي دقاقيا كقحي دقوق حبد بي مقدان دوق لي مبحو دراتن حمرك بحي دقاقيا
ilma dhoolkii sudhida ma noqon dhammayskii isma noqon sawaaxili igama dhiman sawaaxili igama dhiman salka dhigi lahaa geedigu ku dhammaan lahaa miyaanay dhowin karo dad yahow dheeraa wadadu dad yahow dheeraa wadadu waxaan dhacaa oon ku fabaa Itoobiya miyaan dhex tegi waxaan dhacaa oon ku fabaa Itoobiya miyaan dhex tegi waxaan dhacaa oon ku fabaa Itoobiya miyaan dhex tegi waxaan dhacaa oon ku fabaa Itoobiya miyaan dhex tegi dawaynta kalgacalka badan leeyahoy dhallaankay noo rareenayhoy dhulkay dega nagu dheheenayhoy inaan wada dhalanayoon dadkaas isku dhaqannahaan dharaartaas dirahaya dawaynta kalgacalka badan leeyahoy nagu dheheenayhoy inaan wada dhalanayoon dadkaas isku dhaqannahaan dharaartaas dirahaya waxaan dhacawn ku fabaa jeebbuuti miyaan dhex tegi waxaan dhacawn ku fabaa jeebbuuti miyaan dhex tegi nagaga jirin markaasoo dhigay cagaa dhaankii maku furay kartoon dhaankii maku furay kartoon
cidnaba aysan ka jirin markaan soo dhiga cagaa dhaankii ma ku furay kartoon dhaankii ma ku furay kartoon kaarteesad biis dhaankii ma ku furay kartoon dhaankii ma ku furay kartoon ninkii yaqaan baa yaqaanee dhaankii ma ku furay kartoon dhaankii ma ku furay kartoon dhaankii ma ku furay kartoon haweenka halkaas ku dhaqan haddaanay soo dhoweyn naftayga dhici lahayd dhaankii ma ku furay kartoon dhaankii ma ku furay kartoon dhulkii cabsi buu noqdee dayuurad miyaan ku dhacay daruuraha miyaan dhex tegay nabad ma helineya alla heleedo iyo heleedo alla heleedo iyo heleedo alla dhibkiiso igama harineya alla daraartaas nabad ma helineya alla heleedo iyo heleedo waxaan dhacaon ku fobaa denmark miyaan dhextegay anoo idigu tahay dhib weyn ma isdhiibi qaxootinimo dhowr saac dabadeed markaas miyaan baabuur ku dhacay waxaan dhacaon ku fobaa san hoolan miyaan dhextegay daraar dabadeed markaas buluukaar miyaan ku dhacay markaan joogay dhow bilood ma ii soo dhaca sharcigii gobolka yuulaan la dhaho miyaa silkii buu dhex tegay gobolka yuulaan la dhaho miyaa silkii buu dhex tegay waxaan jeclahay inaan halkaan aad iyo aad ugaga mahadnaqo ummadii igu siisay gacanta inaan heesaska kan anigu aan hayo ay ii filmeeyaan oo ay ii maaragtay cajaladeeyaan oo ay macnaha gacanta igu siiyay ayaan waxaan rabaa halkaan inaan uga mahadnaqo horeeto ugu horeyntii waxaan rabaa dawladda Denmark inaan uga mahadnaqo gacanta weyn ay igu siiyeen inaan film ka dhigay heesaskayga kan mar labaad waxaan rabaa qaybta u qaabilsan qaxootiga inaan mahad weyn halkaan uga noqo iyadoo ay ka mid yihiin naagta la yiraaho Boda
iyo maxaa la yiraahaa ninkii heesaska kan muusikadooda isku kaysoo dobiriday oo la yiraaha Son ninka filimada sameeyntooda iyo u qaabilsan waxa la yiraaha Yan ayaa la yiraaha ninkii ugu horeyntii marka aan Denmark soo galay igu qoray buug ay fanaaniinta Denmark ka joogto oo dhan qolo kasta halahaadeen qabiil kasta halahaadeen igu qoray buuggaas isagana aad iyo aad baan mahad ugu celinayaa ninkaas oo la yiraaha Klaus la yiraaha haatan isagoo aan ka shaqeynin qolada qaxootiga ka tagay shaqadoodii laakiin aad baan ugu mahadinayaa barke isaga ayaa arrimahayga bilowgooda iska lahaa marka sidaas iyo nabadgelyo